إلهي سبحانه وتعالى haynagu anfaco waxaynu ka doonaynana haynaga siiyo cilmi iyo amal wanaagsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala haynagu arsaaqo su'aaluhu sidii ay ahaan jireen waxay u qaybsami doonaan insha Allah ta'ala saddex qaybood qayb ku saabsan bisha Ramadaan maadaama bisha Ramadaan lagu jiro ahkaamteeda iyo wixii la mid ah ay soo weydiinayaan dadku iyo qayb markaa ku saabsan cibaadooyinka qaybahooda kala duwan iyo qayb markaa iska ijtimaaciya ama arrimaha bulshada u badan waxaan ku bilaabi doonaa insha Allah ta'ala qaybta ku saabsan ahkaamta bisha Ramadaan haddii isku guda galno saa'ilkan wuxuu leeyahay Sheekh Maxamed dadka qaar baa waxay yiraahdaan qofku hadduu bisha Ramadaan geeriyoodo ama maalin jimcaha uu geeriyoodo toos buu jannada u galayaa arrinta maxaa ka jira su'aasha labaad maxay noqonaysaa xukunkiisa qofka zino ku dhaca bisha Ramadaan sidaysa toobadkeenkiisa iyo toobada Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo noqonaya ay noqonaysaa su'aasha saddexaad sidee u qaleynaysaa gabadh laba sano soonkood lagu leeyahay ama laba Ramadaan lagu leeyahay sababtuna ay ahayd marna inay uur lahayd marna waxa weeyaan ay nuujinaysay maaragtay ilmaha su'aasha afraad qofku hadduu biyo cabo biyo wax ku luqluqdo oo ka shakiyo biyahaasi inay ku tageen ama wax ka mid ah caloosha u dhaadhaceen oo shakigaasi uu ku yimaado soonkiisu wuxuu noqonayaa Sheekh Maxamed الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد قفكو مركو لنتم مالنت الجمعة أما هبينك الجمعة رسولك وحو صلى الله عليه وسلم حديث حسن وترمذي ورين أيه وشاقي إنه لهاي كإلى لنا فتنة القبر قبرك فتنة ديس فتنة دا سنة عذاب بين قنيسا مرهدو لهاي فتنة دا iyo cadaabkii qabriga ka ilaaliyay waxa loo rajaynayaa inuu ka dambana Ilaahay ka ilaaliyo marka bishaaradaas uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam dabcan sida loo ogsoonyahay waa qofkii aan gaal ahayn ee muslima qofku hadduu adduunyadan gaalnimo kaga tago rajo isagu ma laha marka qofkii muslimka laakiin rajadaas uu nabigu muujiyay sallallahu alayhi wasallam ilaahayna waxaynu u baryaynaa inuu aqbalo su'aasha labaad ee sheegaysa qofkii inuu sina ku dhacay bisha Ramadaan waa laba dambi oo waaweyn dambigii sinada oo faaxisho ah oo wada la maratii u xumayda sidoo Ilaahay Quraanka ku cadeeyay iyo xurmadii Ramadaan oo uu jabiyay waa wax aad iyo aad u khatar badan laakiin haddana qofku dambi kasta uu galo albaabkii toobadu u furan yahay intuu nool yahay hadduu Ilaahay u toobad keeno Ilaahay baa wuxuu qul yaa cibaadiy alladheena asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmatillaah inna Allaha yaghfiru dhunuuba jamiica aayadda Ilaahay wuxuu leeyahay Nabi Maxamed oo dadka u bushaareeyay waxa uu sheegtaa dadka dambaabay inuu Ilaahay dambiga oo dhan dhaafo marka waajib waxa ku ah inuu Ilaahay u toobad keeno maalintaana soo qaleeyo kafaara gudkiina la yimaado kafaara gudku waxa weeye inuu 2 bilood soomo hadduu soomi kari waana 60 miskiin wax siiyo raashin siiyo miskiinkii walba 1 kiilo maalinkii uu ceebta iyo xumaanta sameeyay waxa ka dhashay jariimada oo weyn daraadeed xalku waa caynkaas ruuxa dumarka ah 2 bilood lagu leeyahay oo qalla Ramadaana sida ay u kartaabay u soo qaleynaysa wax sunna ah u kici mayso de faral baaba lagu leeyahay marka faralka korba inta ay kartay soo qaleynaysa 10 cisho 20 cisho 5 cisho sanadka dhaxdiisa ayay tahay inay u degdegtay bixiso fadaynullaahi ahaq an yuqda sida xadiidka nabiga ku cad sallallahu alayhi wasallam deynta Ilaahay baana ku haboon in loo degdego oo tabani aadamka ka haboon su'aasha kale ee sheegaysa qofku isaga oo sooman hadduu weysaysto oo uu ka shakiyay inuu biyo liqay soomkiisa miyuu wax noqonaya maya kol haddaanu yaqiin haynin kol haddaanu ogaanu liqin markuu ogaanu liqo uu kaso ayaa soomkii uu ka jabaya laakiin haddii uu shakiyo ama waxa ka baxsaday wax yar yahay oo aanu filaynin dib malaha
wax yaqiina baa lagu xisaabtamaa xagga sharciga yaqiin hadduu isagoo u kasay biyaha cabuun buu ka jabaya laakiin isagoo isilowsan hadduu cabo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inuu fursadun ka faa'iidaystay wixii shakiina ku xisaabtan ma leh wallahu aclam jazaak allahu khayr sheekh maxamed ilaahay subxaana watacaala ha ku barakeeyo su-aalaha qaybta ku saabsan soonka saddexa su-aalada ugu dambeeya wuxuu leeyahy saa-ilka soo qoray ruuxa dumarka ee da-da ah ee weliba caqligeedii tegey miyaa lagu leeyahay fidye inay bixiso halkii ay ka soomi lahayd maadaama caqligeedii aanu shaqaynaynin su-aasha labaad dumarka qaar ba waxay isticmaalaan kiniin ay maaragtay isaga ilaalinayaan dhiigga xaydka si ay jaaniskii soonka u helaan oo ay u soomi karaan arrintaa iyadana xukunkeeda sharcigii muxuu yahay su-aasha ugu dambeysa qaybta su-aalaha soonka ku saabsan wuxuu leeyahy saa-ilka soo qoray waxaan ka shaqeeyaa wadannada gaaladan jooga dibadaha waxaan ka shaqeeyaa meel khamriga lagu iibiyo deetna khamriga iyo hilibka doofaarkaanu u qaybinaa dadka guryahooda aan ugu geynaa waana soomanahay marka soonkaygii muxuu noqonayaa se waxaba ka horeeya in laga shaqeeyo diinta islaamku maxay ka qabtaa sheekh maxamed su-aasha waxaa ku jira qofkani waa qof waayeeleh oo asaasaqay ama caqligiisu aanu joogin maxaa xukunkiisu noqonayaa kol haddii qofkani aanu miyir qabin oonu waxba kala garanayn soomkii u ka dhacayaa shuruudaha soomka aynu soo sheegnay waxaa ku jiray an yakuuna caaqilan qofku waa inuu yahay qof wax garanayo miyir qaba markaa soomna laguma loo maba isoga qofkani fidyana lagama bixinayo shuruudihii soomkaa laga waayo loo yaqaano shuruud ulwujuub wa shuruud sixa in cibaadadani kumaba waajibaysaba shardiga su-aasha labaad ee sheegaysa ma la isticmaali karaa kiniinkan caadada lagaga hortago iyadoo ruuxa dumari doonaysa inay bishii ramadaan aanay ka kala goyn oonay hadhow soo qalaynin ay dhammaystirato way isticmaali kartaa si ay xajkii u gudato ama soomkii u gudato laakiin waxaa fiican inay iska dayso inay iska daysaabaa fiican oo dee wax ilaahay ku kalifay ma aha fursadna waxay u haysataa inay iska cunto oo ay soo qalayso laakiin hadday cunto dee qofkii wuxuu noqonayaa qof aan dhiig lahayn oo daahir ah soomkiisii markaa wuu ansaxayaa inay iska daysuubaa fiican baynu su-aasha saddexaad ee iyaduna odhanaysa qofkii ka shaqaynaya doofaarkaa iyo bahalkaa khamriga ee la dhigdhigaya xaafadaha gaalada loo geynayo soomkiisii ma ansaxayaa soomkiisu wuu ansaxayaa xaaraantaa uu ka shaqaynayana inu iskaga tagaabaa waajiba waa laba arrimood oo kala madax bannaan faralkan inaad la timaado iyo xaaraanta inaad ka tagto xaaraantaa qofku inaanu ka shaqaynin ee uu ka tagaabaa waajiba soomkiisina sidiisu ansaxayaao cibaado uu ku leeyahay weeye ilaahay baa ku lahaa subxaana wa tacala markaa mar hadduu cibaadadii gudanayo soomka ahayd iyo salaaddii way ka ansaxayaan inkastoo qofku markuu xaaraan ku howlan yahu cibaado gudanaya ajrigeedii yaraanayo oo mukhaalafo sharciya sharcigiibu dee khilaafaya ajrigiisii wuu yaraanayaa laakiin cibaadadu way ansaxaysa wallahu aclam jasaaka allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala sheekha ha barakeeyo miisaanka xasanaadka u saaro cilmigana ilaahay subxaana wa tacala ha u barakeeyo waxaynu gudagelaynaa su-aalihii ku saabsanaa cibaadooyinka kale salaada iyo wixii la mid iyo weysada iyo dahaarada wuxuu leeyahy saa-ilka soo qoray waxay dhaafay 2 sano salaadood yani 2 sano ayaanan tukan anigoo qaangaadha salaadaas sidaan usoo qadayn karaa haddaan israa soo qallee mise qalle ma laygu leeyahay su-aasha labaad wuxuu leeyahay saa-ilka soo qoray ma lagu tukan karaa kabaha qofku isagoo kabihiisa xidhan salaad ma tukan karaa su-aasha saddexaad in la masaxo shirabaadada qofku markuu weysaysanaya halkuu lugaha ka meedhi lahaa inuu shirabaadada masaxo xukunkeedu maxay tahay hadduuse masax isiraa qaab nooceeya ayuu u masaxayaa su-aasha afraad waxaa jira had iyo jeer dad qaybiya sadaqo ama iftaar ha noqoto ama waxa weye sadaqooyin kale ha noqoto iyo mucaawanooyin sawiray had iyo jeer qaadaan sawiradaas in qofkii isagoo sadaqo bixinaya sawirna uu qaado arrintaas sheekh xukunkeedu muxuu yahay falyatafadal sheekh maxamed qofka haddii salaadi ay ka tagto sida jumhuurulculamaa ay qabaan
culimada islaamku u badan yihiin waxa weeye qallaha in lagu leeyahay marka halkuu qofkani salaado sunno ah ka tukan lahaa waa in faralkii un soo qalleeyo isaga oo tirsanaya intii ka tagtay deyn ilaahay uu ku leeyahay qallaha salaadu wuxuu la mid yahay kii soomka kii xajka marka qofku siduu soo qallayn karo soo qallaynayaa halkii sunno uu ka tukan lahaa salaadahan badan ee faralka lagu leeyahay ayuu tukanayaa waa deyn saaran weeye ka inta sane lagu leeyahay buu salaadahoodii qaybayaa salaad walba mid buu raacinayaa ama laba raacinayaa sidaasuu ayuu ku soo dhammaystirayaa qofku su-aasha labaad ama lagu tukan karayaa kabaha waa lagu tukan karayaa kabaha oo dharkunbay ka mid yihiin markaa dharku hadduu nijaas leeyahay kabuhuna nijaas leeyihin laguma tukado laakiin dharku hadduu daahir yahay kabuhuna daahir yihiin waa lagu tukadaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam xadiid waxa uu ku leeyahay saxiixa markuu midkiin yimaado masaajidka kabaha ha eego intuu rogo ha eego hadday wasakh leeyihin ha ka nadiifiyo haddii kalena ha iskaga tukado waana la ogyahay dee masaajidadu berigaa ciid bay ahaan oo may guglanayn iyo quruurux bay ahaan kabaha waa lagu tukan kari jiray marka xadiidkaas wuxuu fasaxayaa in kabaha lagu tukan karo dharka ay ka mid yihiin laakiin markuu masjidkeennu yahay sida kan goglan nebiguna uu ina faray inaynu udgoonayno aynu nadiifinno kabaha waynu ka bixinaynaa sababta loo bixinayaa maaha inaan lagu tukan karayn laakiin nadaafadda masaajidka ayaa la ilaalinayaa oo nadaafaddiina xadiidkii waa ku soo arooray kabaha in lagu tukan karana wuu ku soo arooray markaa waxaa la qaalib yeelayaa in kabihii la iska bixiyo taa jawaabteeduna waa caynkaas su-aasha saddexaad ee masaxaadda sharabaadada waa la masixi karaa waxaanay la mid yihiin bay leeyihin culimmadu khufkii maqaarka ahaa ama haragga ahaa ee berigii hore la gashan jiray ee kabaha ka hooseyn jiray sharabaadadaa beriga hore maqaar bay ahaayeen ama harag bay ahaayeen yaroo khafiifa dushoodaa la masixi jiray markaa sharabaadaduna shardi un bay u xidheen waa inay sharabaado adag oo qawiya dun iyo suuf mid kastaa ka samaysnaadeen markay yihiin sharabaado qawiyahoo xoog badan oo biyaha lagu masaxayo aan sii daynayn waa la masixi karaa waanay soo aroortay nebigu jawrabeenka iyo kabaha inuu masaxay mar wada masaxay way soo aroortay marka shardigaasunbaa loo xidhayaa su-aasha afraad ee ah qofku marka uu sadaqo bixinayo sawir ma qaadi karaa haddii dadkii u soo dhiibay ay arrintaa ku rumaysanayaan oo qalbigooda uu ku degayo ilaa waa kan adduunkii wada kala shakiye oo uu ku qancinayo dadkii sadaqada u soo dhiibo warbixin iyo jawaab ay tahay dhib ma leh laakiin asalku waxa weeyaan sadaqada fuqarada iyo masaakiinta la siinayo in la qariyo ta mashaariicda caamkaa lagu bixinayo ee dadka lagu dhiirigelinayo en qof la siinayna in la muujiyo asala oo dhiirigelin baa iyada ku jirta ilaahay baa labadaba xusay in tubdu sadaqaati fa nicimmaa hi wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fa huwa khayru lakum sadaqada haddii aad bixisaan oo muujisaan nicmay leedahay macnaa way wanaagsantay haddaad qarisaanoo fuqarada siisaan markii qarinta waxa la raaciyey fuqaradii baa la raaciyey way khayr badantao ta kale way kasii khayr badanta waayo qofka miskiinkii wuxuu jecel yahay in loo qariyo laakiin wixii danaguuda wadooyin mashaariic masaajida madaaris la dhisayo gallad sheegashaan iyaga ku jirin iyo cid loogu gallad sheegto oo haddii la muujiyo waa la isku dhiirigelinayaa marka waxaynu leenahay waxaa la muujin karaa haddii qofkii lagu qancinayo oo laleeyay de wakaas sadaqadii ehelkeedii way gaadhay tasjiilkii ama muuqaalkiina wakaa xaaladaasoo kale dhib ba lahaa in la duubo wallahu aclam jazaak allahu khayr wabaarak allahu fiik waxaynu u gelaynaa insha allahu tacaala qaybta ugu dambeysa oo ah su-aalaha ku saabsan arrimaha bulshada wuxuu leeyahay qofka soo qoray oo u muuqda inuu yahay qof dumar ah waxaan haystaabay tiri agoon yaryar agoontii mid ka mid ah ayaa waxaan u dhiibay bay tiri oo iga qaaday islaan weedda ah ilmaha yare iga qaaday mas-uuliyaddiisa iyadu ma xambaari kartaa oo ilmahaasi hadduu dayacmo iyo hadday duruufi soo gaadho ma iyadaa lagala xisaabtamaya maadaama iyadu ay maaragtay hayso idin ay u tahay mise anuu xilkeedu isaaran yahay su-aasha labaad wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray su-aal waliba waxaan filayaa waktigan aynu joogno aada loogu baahan yahay wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray waktiga fasaxa
haddaanu nahay waalidka miyaana lagu leeyahay bishii inaanu bixinno daraasada iskuullada iyo madaarista iyo jaamacadaha wixii la mid ah bilaha fasaxa miyaana lagu leeyahay miyaana laga rabaa inaanu bixinno su-aasha saddexaad furiinku ma dhacaya wakhtiga gabadhu ay caadada leedahay su-aasha ugu dambaysa muxuu yahay xukunka qofku inuu la tacaamulo gabadhii u doonanayd maalan gabadh baa u doonan weli looma meherin gabadhaas xaasnimo moola maaragtay tacaamuli karaa wuxuu intaas sii raaciyey saa'ilka soo qoray maxaa farqiga u dhexeeya muxuu yahay gabadha waanu ku siinay iyo waanu kuu meherinay ma isku midunba mise farqi baa u dhexeeya falyatafadal sheekh maxamed caruurtu markay agoon yihiin waxaa mas-uul ka noqonaya awowgood aabbo qoftee wax maamuli karo miyir qaba hadduu yihi haddii wasi uu jirana wasigaa maamulaya dhaqaalahooda wasigu waxa weeye qofkii aabbahood baa qof u dardaarmay oo wuxuu ihi hebelow carruurta adaa ka mas-uula oo dhaqaalahooda u haynaya haddii labadaa aanu midna jirinna maxkamadda degmada hadday tahay mid si fiican wax u maamulaysa taasaa dhaqaalahooda u haynaysa oo maamulaysa haddii taasi aanay jirinna hooyadood walaalkood adeerkood ciddii markaa ugu dhowa ka naxaysa ee waxooda u barbaarinaysa ayaa u dhaqaalaynaysa xoolahooda weliba hooyadu haddii ay tahay qof rashiidadahoo macnaha maamulkeedu fiican yahay oo carruurtii aan dayacaynin iyadaa ugu naxariis badan oo wixii loogu dhiibayaa sida in badanoo culimada ka mida ay qabaan markaa mar walba waxaa lagu xisaabtamayaa danta agoonku halkay ku jirtaa haddii eddadooda hooyadood uga fiicanta iyadaa loo dhiibaya oo wixii ay u korinayso ee u kabcinayso ee ugu shaqaynayso haddii hooyadoo dadka ay ugu dhowdahay oo iyadu ay wixii u dhaqaalaynaysa iyadaa loo dhiibaya marka tartiibtaasaa loo eegi doonaa agoonta xoolahooda waana in aada la ysaga ilaaliyaa oo aan la dayicin xoolihii agoonta laguna xadgudbin siduu qur-aanka iyo xadiidkuba aada uga warramaya oo looga dardaarmay su-aasha labaad ee ah mucalimiintu muddadan dee fasaxa ama lagu jiro ama duruuftan cudurkan laga baqayaaba ay timid ee lasii kala fasaxay dugsiyadii iyo goobihii waxbarashada waalidka miyay ku leeyihin ama mushaharkoodii miyay leeyihin waxaa horta mudan in la ogaado heshiiskan lagu jiro ee la galay muxuu yihi mucalimiinta iyo waalidku ay galeen heshiiskaas waa iijaar waa ujra waa caqdulujra aw ilijaar macnaha waxbaa la kala kiraystay waalidku mucalimiintan uu kiraystay isagiina lacag baa lagu yeeshay marka caqdiga ijaaraduna wax buriya haddii aanu ka imanin qofkii la shaqo geliyey oo isagu uu diyaar yahay sharci ahaan waxa weeye inu xaqiisii leeyahy wastaad baad soo kaxaysatay ama nijaar halkanii dhisbaad tidhi markaa wuu soo diyaar garoobay qalabkiisiina uu soo qaatay waxbaa xaggiisa kama xanibnaa laakiin adigiiba ama dowladdii hoose ku qabsatay ama duruufo kalea kugu yimi oo waxbaa ku xanibay de isagu wuu leeyahy galabtii markaa wakhtigii la gaadho mushaharkiisii wuu leeyahy marka mucalimiintana waxaa la gudban inay dadaalaan oo wixii ama internet ay ugu dhigi karaan ama video ay ugu dhigi karaan caruurta inay u dhigaan oo ay gaadhsiiyaan aqoontii xasba alistidaaca intay kari karayaan waalidkuna maadaam dee mucallinkii isaga inuu sugayo oo isagu xaggiisa uu diyaar ka yahay iyagana waa lagu leeyahay mushqaaddii labadoodabana waxaa la gudban inay ogaadaan duruuf qaahiri inay jirto arrin ka awood badan labada dhinacba oo musiibo caami inay timid markaa midibaka kale inuu la saayiro oo mucalimiintuna waalidka laftiisa kii wax heli kari waaya ama duruuftaniba isaga ay saamayso ee shaqalaani ay ku dhacda inay ka warhayaan ay la socdaan waalidkuna inuu mucalimiinta isaga u xaniban yihiin oo duruufi ay heshay inay ogaadaan oo arrintaa sidaa guud looga wada socdo laakiin xaqoodii way leeyihin su-aasha iyaduna odhanaysa ruuxa dumarka oo caado leh ma furmaysaa haa way furmaysa waxaa u daliila xadiidka saxiixa sheegaya cabdilaahi bnu cumar inuu xaaskiisii furay iyadoo caado leh cumar bnu khadaab baa nebiga u sheegay markaa nebigu wuxuu ihi u sheego ha soo ceshado buui goordho markay daahir noqoto dee hadduu doonayo markaa ama haysta ama ha iska furee laakiin iminka murhu falyuraajicha amar si ha soo ceshado marka culimadu waxay leeyihiin ha soo ceshado waxa laga fahmay inay furantay marka horeba marka saasay culimaduna u badan yihiin su-aashan kale ah
nin baa ruuxii dumarka ahayd ee uu la haasaawayey ama guurka kala sheekaysanayey ayuu xumaan ku sameeyey iyo sino arrintaasi waa sinow galmada ay sameeyeen labadii qofa isu doonanaa macnaa inantii waa lagu siiyey baaba la yidhi laakiin looma meherinin dee weli waa ajnabiya mar haddaanu caqadkii sharciga ha ugu dhicin waxay noqoto maaha xaaskiisii weli maaha marka galmada uu halkaa ka dhacday waa sinow inay ilaahay u toobad keenaanna waa waajib isla markaana si saxa ay isu mehersadaan maxaa u dhaxeeya siinta iyo meherinta waa arrin runtii u baahan dee dadku waxay sheegaysaa in aqoontii diintu ay yar tahay siintu waa iyadoo lagaaga jawaabay codsigii inanta isii ahaa waa ijaabatu lkhidba inantii hala isiiyo waa lagu siiyey waxaa macnaha duntii baa kugu xidhan laakiin kuma mehersano xalaal kuma aha marka waa in la helaa caqadkii sharciga ahaa oo weligu isagu inanta kuu meherinaya intuu ku gacan qaado far waaweyn markaynu ku qorno ama dee sheekhii uu wakiilanayey sheekhaasina uu ku meherinayey marka kol haddaanu caqadkaas dhicin iyo guntintaa heshiiska ah aliijaabu walqabuul baa la ydhaha xagga sharciga oo guntintaasi aanay imanin siintii laguhi inanta waa lagu siiyey dadkuunbay kaaga soo yaro dhowaatay laakiin xalaal kuma aha oo galma ma jirto isla gooni noqosho ma jirto sidii dumarkii ajaanibta ahaa ee kale ee meelaha joogun bay la mid tahay marka dad badani runtii siintaa way ku logo-aan ilaa guurkaa xalaasha iyo caqadkaa la gaadho meherkaa sharciga ah inta ka horeeya xalaal maaha galmada iyo mucaamaladu wallahu aclam baarak allahu fiik wajasaaka allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala sheekha ha ka abaaliyo miisaanka xasanaadkana hagu daro inagana ilaahay subxaana wa tacala inagu anfaco waa darsigeennii su-aalaha iyo fadiilata sheekh maxamed sheekh cumar dirir insha allahu tacaala intaynu darsigan mid la mid a isugu iman doono waa annagu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu